Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabteeda qaaliga meel kasta joogto waan idin salaamayaa. Maanta waxaan isku dayi doonaa in aan wax idinka tuso qaabkee ayaa sawirka backgroundkiisa loo bedeli karaa adiga oo soo dhigan kara backgroundka aad jeceshay midabkiisa. Xataa haddaad jeceshay inaad sawir background aad soo daba dhigto waad samayn kartaa. Marka koowaad waxaa lagama maarmaan ah inaad la soo degto. Tallaabada koowaad qaadaysa waa inaad la soo degto application-ka PixArt ay ku qoran tahay. Haddii aanad haysan waa inaad gashaa Google, waa inaad Google ku qortaa PixArt app, baad ku qoraysaa PixArt app uu kuu soo saaray. Haddii kale Play Store-ka kala soo degi kartaa labadaba. Markaad la soo degto kadibna waxaad tallaabooyinka sidan aad qaadi doontaa insha Allah. Marka hore PixArt baad ku dhufatay. PixArt ayaa saas oo kale ugu dhufatay. Hadda barnaamijka ayaa soo baxaya. Marka uu soo baxo waxaad taabanaysaa barta edit photo ay ku qoran tahay. Edit photo waxaad kasii taabanaysaa barta yar ee background ku qoran tahay. Barta background ku qoran tahay kasii taabanaysaa. Kadibna waxaad dooranaysaa midabka aad jeceshay inaad soo daba dhigto. Hadda waxaan jeclaan lahaa casaan, waa midabadaas oo dhan kaad jeceshay waad soo daba dhigaysaa. Anigu hadda madowgaas soo jeclaan lahaa inaan soo daba dhigo. Waan ku dhuftay madowgii aan jeclaa inaan soo daba dhigo. Wuu soo baxay madowgii, kastoo waan sawir bilaa ka doortay. Si aad wax u fahantaan ma jeclaa inaan sawirka bedelo. Meeshii waxay noqotay madow. Waxaan dooranayaa kaba soo qaado. Waxaan doortay huruudda inaan soo daba dhigo. Kalarka huruudda waan doortay inaan soo daba dhigo. Kadibna waxaan tegayaa barta add photo ay ku qoran tahay. Add photo markaan ku dhufto add photo waxaan la soo baxayaa sawirkan doonayaan background-ka bedelo. Sawirka ayaan soo qaaday hadda. Kadibna waxaan ku dhufanayaa halkaa yara sare add ku qoran tahay. Waan ku dhuftay. Sawirkii markuu saa igu soo baxo, tallaabada koowaad aan qaadaya waxa weeye in sawirka hadduu aad u ballaadhnaa crop baan ku sameynayaa. Waan soo gaabinayaa sawirkii anigoo intaa jaray. Halkana waan soo jaray sawirkii sama ka dhigay. Kadibna waxaan u baahanahay in aan sawirkii cut out, halka ay cut out ku qoran tahay ama maqasku ku soo wareegay ayaa tegaysa. Kadib waxaad calaamadin doontaa sawirka inta aad doonayso inaad jarto calaamadin maysid. Laakiin waxaad calaamadinaysaa inta sawirka waad calaamadinaysaa. Adigoo sidaas u calaamadinaysaa. Markaad calaamadiso si fiican ila socda. Markaad sidaa u calaamadiso waxaad ku dhufan doontaa calaamadda yare arrowga yare xagga u jeeda right-ka. Ku dhufato sawirkii wixii ka qaldan bartaas ka hagaajinaysaa. Adiga oo wixii aad ka tagtay ka raacin doona. Sidoo kale koofiyadoo kale way maqan tahay. Inaan soo celiyo koofiyadii. Inaad aad ugu fiirfiirsataa si aad wixii aad qaladay aad u aragto. Halkaas kale gacantaa maqan. Inaan soo jaraa gacantii. Soo jaraa. Hadda sawirka waxay ila tahay in koofiyadii weli bar badan maqan tahay. Waa in aan koofiyadii inta maqnay soo raaciyaa. Adiga oo aad maaragtay la soconaya. Isku day inaad samayso. Hadda waa tusaale.
filaya inaan wax ugu dhinay sawirka. Kadibna waxaan ku qori doonaa barta save ayaan siin doonaa. Marka aan save siiyo waxa aan sawirka ayaan yara ballaadhin doonaa anigoo isku dayay inaan meesha la ekeysiiyo. Hadda waxay ila tahay inaan laga dareemin sawirkii qaab fiican usoo dhigay kana in yara durkii kan iyo saa durkii in yar kasii darbiba saa durkii. Kadibna waxaan siin doonaa bartaas waxa ku qorantahay taaban doonaa. Bartaa taabto haddii aan u baahdo inaan qoraal raaciyo waxaan tegi doonaa barta ay ku qoran tahay tax baan tegi doonaa barta ay ku qoran tahay. kadibna waxaan raacin doonaa qoraalkan doonay inaan raaciyo waxaan doonay inaan raaciyo halkaa jacayl uu wadkii galay goblamo kalkii dhacay godlan waayay oo guray maxaa guudka ii suray baan raaciyo. Kadibna waxaan siin doonaa kadibna sax ayaan saari doonaa. Qoraalkayga ayaan haddana hagaajinayaa. Qoraalkaygii ayaan xagga sawirka uga dheerin xagga uga soo yara durkinayaa. Qoraalka farta kalarka hadana bedelo barta kalarka qontay kalarka madowga was jeclaystay inaan saaro waayo kalarka huruudda waxa kusoo baxa madowga. Kadibna waxaan doonayaa inaan maaragtay sidaa u sameeyo color thickness weeyaan waa thicknesskii amba qarada kalarka saasoo kale inta baahan u saaro sax. kadibna right sax baan saari doonaa. waxaan u baahan inaan ugu dambeyn sameeyo magaca ninka sawirka iskale waa Cabbaas Yare shanaadu warkaas leedahay magacaaga ka yara maaragtay saas oran kartaa ballaari and then gradient tag doonto sawirkii maaragtay iska yara macaaniin samayn kartaa waana iskaga tegi kartaa halkan maaha barta maaragtay muhiimka maaha ma baahno inaad wixii ka tuso. Okay hadda waan dhameeyey halka ayaan siin doonaa calaamadda arrowga yar baan sii raaci doonaa mar kale waa tallaabada ugu dambeysay. kadibna save to gallery baan tegi doonaa. saas ugu saaf gareysmay shaqadii saas ku dhamaatay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.